gaar ahaan ciidanka xaqu-dararka waxaan u sheegaya yaysan niyad jabin xaq iyo baadilna ilaahay ma wada simin insha allah hadduu ilaahay yidhaahna waa laga guulaysan doonaa aakhirka dambena waxay noqon doontaa mid culayska ilaahay uu ka dulqaado ninkii samraana sidka iskale marka culays badankiisana fudeeda ahaado marka biidnillaahi alkariim yaana la niyad jabin ha la dagaalamo ha loo istaago sidii dhibaatada dadkan hayso loogu bixin lahay loogu badbaadi lahay hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah biidnillahi alkariim qof walba oo ereydaas deganna deegaanadaas deganna waxaa ku waajibo dagaal jihaad ka dhana inay u istaagaan qoryahooda qaataan ay iska kiciyaan qof walba meeshuu degan yahay hadduu iska dhiciyo waxaanu mar hore waa bixi lahaayeen marka jihaad hadday rabaan haadaana wadamo meelaha gaalada ay degan yihiin waa yaqaanaan laakiin dadka maatada iyo xoolaha dunyada laguma jihaadee nimankan sayaadiinta oo nabaddiidka oo soo jiraanka nimankan sayaadiinta oo nabaddiidka oo soo jiraanka waxaan u sheegayna inaanu ku jabaynin waxaad samayseen dadkii aad guryaha ka gubteen xoolihii aad qaadeen inaan lagu jabaynin dadaalkuna waa la wadi doonaa aakhirka dambe insha allah biidnillahi alkariim waa idinka guulaysan doonaa biidnillahi alkariim intaas ayaan sheegaya dadweynahaas ayaana la niyad jabin hala dagaalamo